ballanqaadiyo uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ballanqaaday oo ka sii warramayna waa jiraan. wax ka midii waa dhaceenoo waa xaqiiqoobeen, bimacnaa xaqiiqadoodaa caddaatay, waxna weli waa laaban yihiin. nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam islaamku inuu faafaayo oo mashaariq alardi wa maghaaribaha uu ka dhacay. oo waxa uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam: ina allaha zawaa liya alarda fara'aytu mashaariqaha wa maghaaribaha wa ina mulka ummatii sayablugu maa zuwiya liya minha. yacni wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay arlada ayuu ii soo ururiyey. markuu arlada ii soo koobo ii soo ururiyey ayaan waxaan arkay buu idhi inta beriyadeeda ah iyo galbeeddadeeda buu arkay. yacni arlada marka waxa weeye berigeeda iyo galbeedkeeda waa lay tusaa. mulkiga ummaddayduna wuxuu gaadhi doonaa intaa lay soo ururiyo o dhan. taana xadiiskaana waxaa soo wariyey barqaani baa mustakhrajka saxiixu muslim ku soo wariyey. marka waxa weye waa xadiis saxiix. axaadiis kale waa ku soo aroortay in nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam wuxuu mulkiga ummaddaydu gaadhi doonaa maa balaga alleylu waannahaar. kaasaa ka sii layaab badan. inta habeenkiiyo maalintu gaadhaan oo dhan buu gaadhi doonaa. waxyaalaha ballanqaadyada laaban bay ka mid tahay. waxaa ka mid a in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam inuu sheegay laba magaalo in la furan doono. laba magaalo oo la furan doono ayuu sheegay. markaasaa la labada magaalo tee la horraan furanaya. markaasuu madiinatu hiraqla tuftaxu awala. magaalada hiraqlaa la horraan furanaya. magaalada hiraqla waxay ahayd qustantiiniyay ahayd. qustantiiniya ayay ahayd. waa ta hadda loo yaqaano istanbuul loo yaqaano. waagaa waxaa ka talin jiray boqor markaa waxa weeye ruumaana baa ka talin jiray. boqor ruumaan ah oo hiraqle la odhan jiray ayaa ka talin jiray. cajaa'ibka jira waxaa ka mid ah inay saxaabadu wakhtigoodii ay ku duuleen qustantiiniya oo ay weerareen min casri asaxaaba. waxaanu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam: awalu jeyshin yagsulu qustantiiniyata makfuurun lahu. ciidanka ugu horreeye qustantiiniya weerara ee ku duula dembigooda waa la dhaafay. waxaa markaa ciidankaasi u weeraray wakhtigii mucaawiye. mulkigii mucaawiye wakhtigiisii ayuu weeraray. ciidankana waxa watay yaziid ibnu mucaawiya. waa manqabada qura ee loo soo wariyey yaziid. ciidankaa isagaa watay, iyadoo ciidanka ay ka mid ahaayeen saxaabada qaarkood ay ka mid ahaayeen oo abu ayuub alansaari uu ka mid ahaa ciidanka uu ku jiro. farantii baanu markaa ku dhintay abu ayuub alansaari meel qustantiiniya ka baxsan oo laakiin ku dhoweyd ayuu ku dhintay. halkii baana lagu aasay. halkii ayaa abu ayuub alansaari lagu aasay. qustantiiniya markii dambe waa weynaatay. hadda xabaashii abu ayuub alansaari waxay ku dhex taallaa bartamaha qustantiiniya ku dhex taallaa. marka la yaab waxa leh iyadoo wakhtigii saxaabada nebigu calayhi salaatu wasalaam ay sidaa jihaad ahaan ugu duuleen qustantiiniya ayaa haddana wakhtiyadaasoo dhan lama furan. waxaa la furtay qarnigii sagaalaad. kii koowaad lama furo, kii labaad lama furo, saddexaad lama furo. qarnigii sagaalaad baa la furay. 850 markii hijrigu ahaa ayaa qustantiiniya la furay. madiinatu hiraqla tuftaxu awala. wakhtigaasoo taxaquqa 850 meelahaas inay ahayd baa furay. waxaana furtay maxamed alfaatix ayaa furtay oo isaguna turkiya. magaalada labaad waxay ahayd ruuma. ilan aan lama furan. waa roomada talyaaniga. waxay ka mid tahay waxyaalaha baaqiga ay ka mid tahay. ballanqaadada la sheegay ee weli hadhsan ayay ka mid tahay. ka waa in la ogaadaa islaamku inuu guulaysanayo. dadka qaarkood waa niyad jabeen markay arkeen gaaladoo siday u calan wallaynayaan iyo awoodda ay sheeganayaan iyo tirada badan ay leeyihiin iyo markaa hubka ay kasbadeen. markay waxyaalaha arkeen dad badan baa iska niyad jabay oo markaa u qaba marnaba inaan markaa waxaa weeye islaamku guulaysanaynin. aakhiro in la cadaabo mooye adduunyada inay jabayaanba gaalo dadka qaar baa laga yaabaa inaynay u qabin.
laakiin wacdiga uu nebigu sheegay iyo akhbaarta uu ka warramay waa in la rumeeyaa, waa in la ictiqaadiyaa, waa inaan laga shakinin, waa in rajada markaa waxa la rajeeyaa, waa in la ogaadaa nasrigu inuu imanayo. laakiin nasriga waxaa ka horreeya ibtilaa' iyo imtixaan baa ka horreeya. waxaa loo baahan yahay shareecadii in lagu qumanaado, lagu toosnaado ayaa loo baahan yahay, oo taas markaa lala yimaado qumanaanta shareecada lagu qumanaado. ilaahay isaga awoodda leh, markuu doonanoo tamkiinka bixinayaa nasrigana markaa keenaya. yaa markuu doono ayuu keenayaa. xikmad ilaahay baa ku jirta in markaa gaaladii yacni waxa weeye awood la siiyo, oo ay markaa waxa weeye libaystaan, oo ay markaa awood helaan, oo ay calan walleeyaan. xikma rabbaaniya ku jirta. laakiin markuu ilaahay jebinayo waxba kuma aha. yacni waxa weeye markuu jebinaayo waxba kuma aha. walow yashaau allahu lantasara minhum walaakin liyabluwa bacdakum bibacd. hadduu ilaahay doono yacni gaalada markaa waa jebin, iyadoo mu'miniinta aan waxba la kellifin, aan la odhan la dagaalama, ayuu markaa ilaahay markaa jebinaya hadduu doono u jebinayaa. laakiin ilaahay wuxuu isku imtixaanayaa, dadka ayuu isku imtixaanaya. innagana ibtilaa baa markaa inoogu jira, arrinkaa ibtilaa baa inoogu jira oo laynagu imtixaanayo. gaaladana waxaa la rabaa dembiga inay badsadaan oo sii kibraan, oo dunuubtooda ay badato, oo ilaahay ruuxa daalimka waa u kaadiyaa. ina allaha la yumli lildaalimi xataa idaa akhadahu lam yuflithu. nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam, ilaahay waa u kaadiyaa daalimka, waa u kaadiyaa ka daalimkae xadgudbay. yaa waa u seeto dheereeyaa, laakiin markuu qabto ma sii daayo. wakadalika akhdu rabbika ida akhada alquraa wahiya daalima ina akhdahu aliimun shadiid. marka waxaa la rabaa istiqaama ayaa la rabaa. waxaa gaalada laga guulaysanayaa waa in shareecada lagu qumanaado, lagu toosnaado. taasaa lagu guulaysanaya oo guusha lagu helay. maaha awood maadiya in la helo keliya in waxa lagu guulaysanayaa tahay. gaaladu awood maadiya iyagu waa ku dadaalaan oo waa kasbadaan, iyagaa ku dadaal badan. yaa laakiin haddii xaggii iimaanka lagu dadaaliyo camalka saalixa iyo shareecada in lagu camal falo oo lagu dhaqmo, dadka muslimiinta ay qumanaadaan, ilaahay nasriga waa siinayaa, guushana waa keenaya. wakhti yar ayaa dawladihii waagaas xoogga lahaa ee aan carabi markaa hawaysan karaynin yacni laga guulaysto lagu jibiyo. yani wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam la soo diray waxaa jirtay 2 boqortooyo oo xoog badan. dadka cindigooda marka la eego yacni xoog badnaaba jira. boqortooya waxay tii faris ayay ahayd, midna waxay tii ruum bay ahayd. labadaaba awoodood ayaa jiray. carabtu markaa waxa weeye waxay ahaayeen iyagu dawlad iyo boqortooye may lahayn. waxay ahaayeen dad markaa waxa weeye aan markaa nidaam kulmiya iyo dawlad iyo nidaam isku dubadhacsan aan markaa lahayn. awood marka ay ugu beegtoomaanna may lahayn. waxay iska ahaayeen markaa waxa weeye ilaahay uu nebiga soo diray calayhi salaatu wasalaam. carabi waxay ahayd yacni dad markaa waxa weeye boqortooyooyinkaa jira iska kala raacsan oo amarkooda iska hoos yimaada oo aan midna isku taagin. yaa yani waxa weeye faris markaysaa boqortooyada ka talinaysaa ayaa ilaa yeman yada ka calawallaynaysa oo markaa waxa weeye hadday doonto awaamirta soo siinaysa oo cidday doonaan u soo cayimayso. waxaad ka garanaysaa yacni markii nebigu calayhi salaatu wasalaam warqadda u diray boqortooyadii faris, markii ninkii boqorka ahaa ee faris boqorka ka ahaa warqaddii uu helay oo loo geeyey oo uu arkay min muxammadin rasuuli illaah ilaa cadiimi yani waxa weye faris ama markaa waxa ilaa kisra yani cadiimi faris ayuu markaa xanaaqay. maba akhrinba warqaddii, maba sii akhrinba. wuxuu idhi markaa qof ka mida racyadayda iyo dadka aniga i hoos yimaada ayaa yaktubu ismahu qabla ismii, magiciisa wuxuu qorayaa intaanu magacayga qorin. say u dhacdaa warqaddii uu saa u jexjex. yaa wuxuu la soo xidhiidhay oo uu cid u diray ninka markaa xukuma yeman. wuxuu idhi ninka markaa warqadda ii soo diray ee markaa xaggaa
madiina yacni warqadda iiga soo diray 2 nin u dir labadaa nin markaa u dirto ha la soo kaxeeyo bal hadda qadarasada iyo kibirka iyo halkay taagnaayeen eeg yaa 2 nin u diro yacni ha la soo kaxeeyo dabeedna labadii buu dira madiinay tageen nebiga ayay u tageen calayhi asalaatu wassalaam dabeedna markaa waxay u sheegeen in halkaa laga soo diray ujeeddadana loo soo diray yacni nebigu calayhi asalaatu wassalaam yacni waa iska dejiyey waayo nimankan waa ergo isla habeenkii baa waxa dhacday boqorkii farisba horta markuu nebigu maqlay calayhi asalaatu wassalaam inuu warqaddii jeexjeexay ilaa cid baa u geysay dhambaalka oo ka soo noqotay waxa uu nebigu u habaaray wuxuu yidhi allaahumma maziq mulka ilaahu mulkigiisa jeexjeexo googo saasuu ku habaaray yaa waxaa lagu salliday ilmihiisii baa lagu salliday dabeedna markiisa waa la dilay waagii markuu beriyey ayuu nebigu ku yidhi calayhi asalaatu wassalaam rabbigay baa rabbigiin dilay rabbigay ayaa xalay rabbigiin dilay nimankii yaabbaabay ku noqotay khalaqaan yaa sidii baa lagu daray boqortooyadii markaa farrisidii bay ku baaba'day inan baa markaysaa waxa la boqoray loo dhiibay markaasaa nebigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam lan yuflixa qawmun wallow amrahum imra'a qole ma liibaanayso taladooda gabadh u dhiibatay liibaani mayso may liibaanin mulkigoodii markii dambena waa baaba'ay waxaynu u jeednaa waagaas marka waxaa weeye boqortooyooyinka jiray dee carabi awooday ugu beegtoomaan ama isugu taagaan may lahayn waxay ahaayeen qaaraan markaa waxaa daaqo iyo awood u lahayn midna u beegtoomi karin haddana maca daalik muddo yar oo kooban oo 22 sano ah ayaa markii nebiga la soo diray calayhi asalaatu wassalaam waxay ku noqdeen markay diintii qaateen yacni awood lagu xisaabtamo oo aan la yaraysan karin ee laga baqo yaa iyaduu nebigu nool yahay ayuu calayhi asalaatu wassalaam ku duulay boqortooyadii ruum meelaha ay xukumaysay meel ka mid ah tabuuk ay ka talin jireen ku duulay ka horna marka waxaa weeye ghaswatu mu'ta ayaa hore u dhacday aanu nebigu la socon calayhi asalaatu wassalaam markii dambena ghaswatu tabuuk oo nebigu hoggaaminayo ayaa markaa waxaa weeye lagu duulay dagaal lama kulmin way markaa carareen ciidamadii markaa meeshaa degganaa iyo waa markaa waxa bakdin baa lagu riday dabeed markaa waxa weye markaa lamabay dagaalamin wakhtigii dambe marka la eegana wakhtigii cumar ibnu khataab ayaa dhul badan la furtay ilaa dhul badan ayaa markaa la furtay oo ilaa markaa waxa ardu shaam yacni markaa waxa yani ayaa la furtay oo waxa weeyaan markaa ay aad u faaftay islaamka xagga ugu faafo dhulka shaam oo dhan la qabsaday xaggana markaysaga faris wakhtigii markaa waxaa weeye cumar ibnu khataab baa la qabsaday waa 30 sano isku noqonaysa cumar ibnu khataab wuxuu hayey xukunka wuxuu hayey oo amiirulmu'miniin uu ahaa 10 sano iyo 6 bilood meelahaasuu hayey waxaa ka horraysay 2 sano iyo 6 biloodoo abubakar hayey ayaa ka horraysay halkaasi waxay noqonaysaa 13 sano waxaad u geysaa 23kii sane hore markaad 23kii sane hore u geyso waxay isku noqonayaan 36 sano haddaba hijrada wakhtigii laga tirin maayo waxa bicsadan ka soo tiriyey intaasay waxay ku noqday inay markaa waxaa weeye boqortooyooyinkii jira ay ku baabi'iyaan sababtuna waxay tahay istiqaamada iyo toosnaanta ay la yimaadeen baa ilaahay nasriga ku siiyey nasriga ta lagu helayaa waa taas yaa ta lagu helayaa nasriga yacni haddii tawxiidkiiyo camalka saalixa lala yimaado ilaahay waxa weye waa u gargaarayaa yacni markaa ahluliimaanka waana tamkiininaya awoodda waa siinaya nasriga waa siinaya wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaati layastakhlifannahum fi اlardi kama istakhlafa aladiina min qablihim walayumakkinanna lahum diinahum aladii irtadaa lahum walayubadilannahum min bacdi khawfihim amna maxaa sababaya yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay'a yani waxa weye inay tawxiidkii la yimaadaan waa inay iimaankii camalkii saalixa la yimaadaan hadday saasi dhacdo alistikhlaaf min allah ilaahay baa bixiya istikhlaafka tamkiinka ilaahay baa bixiya marka waxaa weeye iimaankii camalka saalixa ciddii la timi oo iimaankana tawxiidka ugu horreeyo oo shirkiga laga tago
oo iimaankii la dhiso oo camalkii saalixa lala yimaado faraa'idii la guto waxaa imanaysaa yacni markaa waxaa la ballan qaaday 3 arrin baa la ballan qaaday. arrinka koowaad waa maxay? layastakhlifannahum fi lardi kama istakhlafa aladiina min qablihim, inuu arlada khulafo uga dhigaayo oo markaa waxaa weeye arlada markaa iyaga markaa dhaxal siinayo oo qaar arladii markaa u hadha uu ka dhigayo. walayumakkinanna lahum diinahum aladii irtadaa lahum, diintooda inay ku camal falaan oo aynay cidnaba u daba fadhiisan yacni markaa ayuu ilaahay awoodsiinayaa oo tamkiininayaa aynu waxa cid uga amar qaadanaya inaynay jirin. walayubadilannahum min bacdi khawfihim amna, wuxuu ku beddelayaa cabsidooda dabadeed nabadgelyu ugu beddelaya. cidda ku beddelaysaa waayo waa allah. ilaahay ficilkan isagaa isu tiirinaya. cidda markaa tabdiilka samaynaysa waa allah, cidda tamkiinka samaynaysa waa allah, cidda istikhlaafka samaynaysa waa allah. yacni taaqa dadku ay leeyihiin iyo awood iyagu leeyihiin iskood keliya kuma samaynayaan. waxay ku samaynayaan inuu ilaahay awoodda siiyo, taana wuxuu ku siinayaa inay shareecada ku qumanaadaan. in tansuru allaha yansurkum wa yuhabbit aqdaamakum. haddaa allah u gargaartaan allah waa idin gargaaraya. si allah loogu gargaaraya waa in shareecadii lagu camal falo, maaha markaa in tansurullaha in loo jeedo kale haddaad jihaadaan. oo dadku haddii marka waxaa weeye diin ahaan aynay u wanaagsanaan oo faraa'idii aynay gudan oo dembiyadii shirkiyaadkii aynay ka tegin oo marka waxaa arkaantii islaamka aynay gudanin oo aynay marka waxaa weeye salaaxii iyo wanaaggii aynay la iman oo shareecadii ku qumanaan dagaal keliya inay la yimaadaan kuma guulaysanayaan bal intee marka waxaa weeye camalka shareecada inaga dayacan hadday tahay xaggii tawxiidka. dadka qaarkood marka gaalnimadii ay ku hadaaqayaan ama gaalnimo ictiqaadsan yihiin, qaar baa ilaahay caayaya, rasuulkiisa caayaya, diinta islaamka caayaya, malaa'igta caayaya, nebiyada caayaya, yacni axkaamtii shareecada wax ka mida aflagaadaynaya oo dhaleecaynaya. qaar kalea ilaahay cid kale la caabudaya oo xabaalo iyo wax la mida ama marka daday awliye u aaminsan yihiin xabaalahood ayay marka waxa weeyaan markaa qurbaan iyo cibaadaad u samaynayaan oo wax u gowracayaan oo u nadrayaan oo iyaga gargaar weydiisanayaan oo qalbigooda ku tacalluqayaan. qalbigooduba wuxuu ku xidhan yahay qurba hadday haleesho waxay leeyihin sheekh hebelow dhibaatada iga qaad, yacni markaa saas yihiin. ilaa qaarkood ay leeyihiin hadday kurba ku haleesho allah ha baryiina hebel bari, alweliyu asracu ijaabata min allah. waa inagii hore uga soo warramay inay qaarkood yidhaahdeen weligaa ka duca aqbalka ka degdeg badan, siduu allah u aqbalo waxaa ka degdeg badan sida marka weligu u aqbalo. waatay saas yadaa markaa yidhaahdeen. marka qaarkood shirkiyaadkii bay saa ugu dhex jiraan. arkaantii islaamkaa dayacan wax badanoo ka mida. intee baa salaaddii ka tagtay? intee tukataa? intee baa soonkii ka tagtay? aan soon iyo salaad toonna aqoon. intee baa zakadii ka tagtay? yacni arkaantii islaamkaa saa looga tegay. marka haddii waxa weeye dee xumaanta iyo macaasida iyo dembiyada iyo lala yimaado oo la aaba yeeli waayo weliba la daahirsado la muujisto, waxaa imanaysa cuquuba ayaa imanaysa. marka nasriga waxaa lagu helayaa shareecada in lagu qumanaado. marka in tansurullaha jihaadku waa ka mid sida allah loogu nusraynaayo, laakiin muraadka looga jeedaa in tansurullaha ma aha jihaadkoo qura. axkaamta shareecada in lagu camal falo tawxiidku ugu horreeyo oo arkaanta islaamka ku xigto ayaa marka waxa weeye nasriga allah loo gargaarayo ugu horraysa. jihaadkuna waa ka mid. jihaadkii waxaa lagu guulaysanaya haddii la qumanaado la wanaagsanaado. laakiin haddii marka waxa weeye xumaan lala yimaado la xumaado ama haalibka dadku ay xumaadaan, yacni waxa weeye dee nasri lagu heli maayo, dagaal jab baa imanaya. iyadoo nebi maxamed joogo calayhi salaatu wasalaam ayaa saxaabada qaarkood markii mukhaalafa ka dhacday dagaalka dhexdiisii yacni waxa weeye cashar waxaa lagu siiyey dee in marka waxa weeye gaaladii marka ay libaystaan. ghaswatu uxud waa garanaysaa, ghaswatu xunayn waa garanaysaa. xataa idaa fashiltum fi lardi watanaasactum fi lamri wacasaytum min bacdi ma araakum maa tuxibbuun. waxaa gaalada laynayseen oo sukuumayseen ilama iyo markii dee waxa weeye idinka fashal idinku dhacay oo ay iskhilaafteen, yacni marka cisyaanna alla timaadeen. markii taasi dhacday sukuunkii gaalada la sukuumayey waa isbedeshay. hadda maaragta yani yowmu xunaynna waa garanaysaa. waa saas calaa kulli xaal
tafsiirna waa kaas waa in laga tilmaamayo alarda in loo jeedo dhulka marka in laga tilmaamayo marka wacdigii qayb baa maqan oo weli marka waxa weeye soo socota oo iman doonta waana in la rumeeyaa la ictiqaadiyaa nasrigu inuu iman doono aan marka waxa weeye qofku waa inaan islaamka iyo muslimiinta waa inaan u baqin islaamka waxba u baqin laakiin naftaada inxiraaf uga baq islaamka allah buu u sugnaaday allah baa soo dejiyey allah baa ilaashay ya marka arrin markaa qalada weeye qofku markaa inuu yahay islaamnimo u baqaya diinta islaamka waxba u baqin muslimiintana waxa weeye haddii si kasta loo xasuuqo lama dhammayn karo ya kuwa markaa gaaladu laysay laynta ay gaaladu laayeen iyagu ku khasaarmay awalba waa dhimanayeen mawaaritaan baa loo qoray waa dhimanayeen haddii shareecadiigoo ku quman markaa la laayo ajar iyo hawaab bay helayaan yacni may khasaarin ya caaqibadiiyo cidhib dambeedkana wuxuu u sugnaaday cidda markaa wanaagsan buu u sugnaaday waalcaaqibatu lilmuttaqiin waalcaaqibatu litaqwa cidhib dambeedku wuxuu u sugnaaday cidda taqwada u saaxiibkaa buu u sugnaaday ciddaas u sugnaaday marka in taqwo lala yimaado la qumanaado la wanaagsanaado ayaa la rabaa